إن أصحابتي داو حيران وين السلامي إن جبناس يرتا وجدان ciidanka booliska ayaa hadda gacanta kusoo dhigay in eedadad ay la joogto aabeed qabi ayaa saas u gashay falkan xunka eedadad ayaa geysatay gabadha jirdil xun ayay ku sameysay korkeeda marka horeba dhaawac ayuu ahay biyo cabitaan ee eedada lahayd ay gabadha yartay u baahatay biyihii ayadoo aan cabin oo gacanta ku haysa cabsi daraadeed markii eedadii aragtay ay biyihii ka daateen in eedadii ayaa hadda ciidanka booliska gacanta ku haya in falkaanay magaalada uu ku batay markasta eedooyinka aad ay caruurta u dilaan aad ay caruurta xumeeyaan sanaha garabkayga midig taagan oo ku eedeysan falka jirdilka iyo farka jirdilka oo loo geystay dhibana sahra oo gabadhan yarta ayadana garabkayga bidix taagan waxa ka dhaxeeya dhibanaha aabaheed ayaa horay u qabay oo ay xaashi u ahayd Shukri eedeysanuhu Shukri Cabdullaahi Xaashi waa haweeney dhawaan ka soo muuqatay baraha bulshada iyada oo garaacaysa Sahra Cabdullaahi Maxamed oo ah gabar yar oo ay eedo u tahay booliska Soomaaliya ayaa maanta ku soo bandhigay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya gaar ahaan xarunta dambi baarista ee CID-da baraha bulshada ayaa waxa laga dhex arkayay Shukri oo si arxan dara ah ula dhaqmaysa Sahra Cabdullaahi Maxamed booliska Soomaaliya ayaa gacanta ku soo dhigay haweeneydan afyeenka ciidamada booliska Soomaaliyeed Sadiq Doodisho oo warbaahinta la hadlay ayaa isagu waxa uu faahfaahin ka bixiyay kiiskan lagu soo qabtay Shukri Cabdullaahi Xaashi sanaha garabkayga midig taagan oo ku eedeysan falka jirdilka iyo farka jirdilka oo loo geystay dhibana sahra oo gabadhan yarta ayadana garabkayga bidix taagan waxa ka dhaxeeya dhibanaha aabaheed ayaa horay u qabay oo ay xaashi u ahayd Shukri eedeysanuhu waxay eedo u tahay Shukri inkastoo hadda aabaheed uusan qabin waxa dareenka ummadda Soomaaliyeed soo kiciyay annaga ciidanka booliska Soomaaliyeedna nagu kalifay in aan arintaas u kuulgalno soona baarno waa fiidiyowga tacadiga hoon helnay marka tacadigu wuxuu cadeynayaa kaliya kuma eka falka shalay fiidiyowga laga arkay baarista hordhacaasaan idin sheegaba waxay cadeynaysaa in gabadha jirkeeda tacadiyo fara badan oo in muddo ah ku soo dhacay ay ku yaalaan marka waxaas oo dhan waxay ku cadaan doonaan baarista iyo rifeertada la geynayo ama dhaawac muujinta loo geynayo isbitaalka ayay ku cadaan doontaa in tacadiyo kale oo aan qarsan oo aan ahayn kuwa isha lagu arki karo ay gabadha saqiirka ay qabto afayana waxa kale oo noo sheegtaa maadaama dilkan uu dhaco gabadhan loo geystay sababaha loo dilay oo asleedihiin waxa kala dhixay Star hordhacayo sida noo cadeynayso falalka noocaan oo sidaan oo kale markay dhacaan lama yiraahdo dil waa jirdil cunug saqiira lagu la kacay waxa sababta keentayna kullay uma dhignaan doonto sababta keentay baaris hordhacaasaan ku ogaanay ma aha wax u dhigma in cunug yar jirkiisa loo dilo oo loo jirdilo bal iska badaayo qof weyn ayaan loo jirdili karin sababta lagu sheegay oo baaris hordhacaan ku ogaanay oo saqiirka loo jirdilay marka cadeynta iyo maxay ahaydey baarisan oo si faahfaahsan iyo eedeysanuhu meesha ay ku dambayn doonto waxaan ku wareejin doonaa maxkamadda awoodda u leh maxaa yeelay annaga sharciga fulintiisaan leenahay ee dabaqaadda waxa iska leh maxkamadda awoodda u leh oo garsoorka ugu horeeyo xeeraalinta ugu horeyso dacwo oogista kadibna waxaa loo wareejin doonaa garsoorka halkaas ayaad kala socon doontaan natiijada meesha kiiskan uu ku dambeeyo Zakariya Axmed Muuse TV-ga Shabeelle Muqdisho